codkaasi ama qashaan waa neef ari ah oo dhaafay muddadii dhalmada ee ariga 5 bilood loogu talagalay. dhaqaatiirta xarunta daaweynta xoolaha ee Dogsan Garowe ayaa isku xilqaamay qalliin lagu sameeyay neefkan si loo badbaadiyo ilmaha ama hooyada. haddaba haddii aad maqasheen ama aad aragteen hooyo xaamilo ah oo sadkeedu ay dhaaftay balse xalku uu noqday qalliin, maanta waa xoolihii oo cidlo ku baqtii jiray oo loo helay daryeel caafimaad. dhaqaatiirtu markan waxay bilaabeen howlgalkoodii qalliinka ah ka hor inta aan la bilaabin shaqada qalliinka. qoyska iskale neefkan iyo dhaqaatiirtu waxay isla garteen in la buuxiyo dhammaan shuruudihii qalliinka uu marayay. Dr. Cabdimajiid Cabdiweli Diirshe Duwe ayaa sharaxaad ka bixinaya marka hore waxa sababa in neefku uu qalliin uu galo. inta badan neefafku si caadi u dhalaan oo neefka hooyada iyo jirka markuu wanaagsan yahay, laakiin neefkan oo kale waxa sababi kara in ay jug ay ku dhacday sida hore u soo sheegnay, ama neefkan oo kale inuu neefku gudaha ku jiray oo dhaqdhaqaaq joojiyay oo hooyadii contraction badan iyo awood badan isku soo saari karin, ama inuu cervicalka xiran yahay oo meesha ilmaha soo mari lahaaba uu xiran yahay oo cervicalka loo xilliyo furay marka ilmaha hooyada uu qaadayso iyo marka ay dhalayso. dhinaca kale waxa uu sharaxayaa nidaamka loo marayo qalliinka lagu sameynayo neefkan. neefka markii surgery-ga sameeyay laba qaab baa la maraa. qaabka waxa weeye inaan sameeysan yani pre operative care iyo post operative care. pre operative care kaas waxa weeye neefka marka koowaad inaan istaabida soo diyaarsan suujiga ku shaqeynaysa arterial forceps-ki, scalpel-ki, needles-ki, absorbable-ki, non absorbable-ki kurtina soo diyaarsatay. aasaasaha xarunta daryeelka xoolaha ee Dogsan Garowe Dr. Jamaal Cabdiqaadir Maxamed ayaan weydiinay sababta ku dhalisay in uu hindiso xaruntan daryeelka xoolaha ee dabooshay baahidii loo qabay. runtii horta markaan jaamacadda aadayay wallahi anoo foonfooraan xaalado fara badan markaan arkay xoolaha ay ku jiraan oo aan u jeedo iska dhaqan daryeel helaane xitaa cid u dhaqdhaqaaqaysa aan arag baan horta go'aansaday inaan xoolahan aan garab buuxaan u noqdo. anigoo sanadkii 3aad ku jira baan bilaabay xaruntaana markaan aasaasay waqtigaasi ahayd, haddana muddo 2 sano iyo bar ay aasaasan tahay. qalliinka oo markan qaatay muddo 1 saac ah ayay dhaqaatiirtu soo gabagabeeyeen, waxaana lagu guuleystay neefka in la badbaadiyo, balse ilmihii caloosha ku jira ayaa uurka ku dhintay maadaama ilmuhu qaab dhismeedka jismigiisa uu aad u weynaa. ugu dambeyn waxaan sameynay qalliinkaas oo loo yaqaan dystocia ama dhalmadii oo ku adkaatay hooyada. alxamdulillah waa ka soo saarnay hadeertaana ilmihii waa kan oo waxa weeye muddadii ku jiray oo uurka baa dheereed iyo ilmihii oo weynaaday kadibna contractionkii la rabay inuu sameeyo uusan sameyn. alxamdulillah rabbil caalamiin si degan oo nabada oo maantay guul iyo gobonimo ku sugan tahay baa waxaan ku soo kala saarnay neefkii iyo ridii hooyada ahayd iyo neefkii ku dhex baqtay. haddii maanta xaaladan wax yar muddo kooban ay ku sii darsan lahayd xaaladii la kulmi lahayd baa ahaa neefku ma ku dhex uro. haddii uu ku dhex urana nafteeduna khatar ziyaada ay geli lahayd. alxamdulillah ala kulli xaal haddana hawshu way noo dhamaatay. haddaba maalin ka hor sidan oo kale xarunta daryeelka xoolaha ee Dogsan waxa ay ku guuleysatay qalliin sidan oo kale lagu sameeyay neef dhali waayay kaas oo lagu guuleystay badbaadinta hooyada iyo ilmahaasi. waana neefkan idinka muuqda muuqaalkan oo haatan ilmuhu uu jaqayo. Xawa Maxamed Ciise oo ay dhaqaatiirta xarunta ay neefkeeda qalliinka u sameeyeen ayaa sheegtay inaysan markii horeba aaminsaneyn qalliin lagu sameeyo neefkeeda in uu ku badbaadi karo. xiriir baa la sameeyay waxaan maanta sida noocaas maxaa ka qaban karaysaa waa ku imaanayaa yiri waxa fadii igu yimid wuxuu igu yiri inkeedu ma furna xaaladani qalliin fursan mayso. anigana madaxa ay wanaade markii la yiri waa la qalayaa xoolo la qali jiray ma arki jiray magaalada kuma maqal jiray xooluhu wiilal hore oo soo jiida way jireen neefka markuu kafka soo galo soo jiida shul iyo shal bay ka dhaxayn jireen inuu neefkaasi baqtiyo ama ka yar lagu soo jarjaro oo baqtiyo. hadda marka wiilkii waxaan ku yiri maandhow sidoo adigu hadda farsamo u garanaysa iga qaad xaruntaada la tagaday baqtiyo tuur hadday noolaatana alxamdulillah ilaahay baa nafteeda iyo naftayda bahaya. kabacdi waa adigu habeenimo la xiriiray haddaan la xiriiray wuxuu ii sheegay waxarnu ka soo baxshay nool neefkiina uu hadda toltolayo ay kooma ku jira koomadana ka soo baxaysa. kabacdi 4 saac baa la ii keenay sideedii iyo waxartaydii oo nool oo badbaadsan ma sha Allah. subaxa saaka haddaan hadlayo oo aan aad ugu naalaweynahay inay xoolo ii noqoto ii fiicnaato xarteedina aan u dhigay iyada waxarteedii ma sha Allah waana la daaweeyay alxamdulillah. xaruntan oo la aasaasay sanadkii 2020 bishii shanaad ayaa sameysay qalliino xoolaad oo dhowr ah kuwaas oo lagu guuleystay iyo daaweyn xoolaad oo wax ku ool ah lagana sameeyay qaybo ka mid ah gobolada Puntland. Xasan Hekel, Universal TV.